السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة كحرا جنرال كي دكتور سجيا كسر دبادة بالله قالي من الباجوتان بإذن الله الكريم هدور برالك النقطة ما أنت موضوع يقول كسر سيء هاي على مدى حلو كرته ورك باللوجة هدين كذا قلنا مقال كينا باللوجة ورك سديل ودريم كرا وحاجة دور على مدى طول كرته هبين يدو إنه يقول خاضي hayeeshee calaamadahaasi midkoodana kaligeeda kuma filna in ay tusaale cad ah u noqoto jiritaanka uurka hooyada balse waa in la helaa iyadoo isku duuban si loo hubiyo in uurka uu jiro iyo in kale calaamadaha lagu garto uurka waxaa ka mid ah caadada istaagta calaamooyinka lagu garto uurka bilowga ah tan ugu caansan caadada oo istaagta calaamadani lagu garto uurka bilowga ah tan ugu caansan ee ugxana saxsani waxa weeye caadada oo istaagta hayeeshee haddii ay dhacdo falcelinta wax yar ka hor imaatinka dhiigga caadada ah waxaa suurtagal ah in uu dhiiggaasi caadadu soo laabto bisha dambe sababtoo ah ilmo galeenka ayaa dul meeraysanaysa ugxansidaha iyadoo oo sugaysa ugxan soo baxda taasi oo aan soo baxaynin ilaa ilmo galeenku uu dib ka rogto ama uu meeshiisa hore u laabto xilliga caadada waxaa ka mid ah calaamadaha matag subaxdii ah matagga subaxdii ay haweeneydu matagto waa calaamada lagu garan karo uurka jiifku waxa uu ka sameysmaa ugxanta hooyada iyo hawada aabaha ama minada aabaha haddaba maadaama dhismaha borotiineed ee hawadu ka duwan yahay kan jirka haweeneydu waxaana shaki ku jirin in ay hawadu ku tahay jirkaasi soo galood in ay ku tahay taasi oo markeenta in ay hawadu ama minadu badankoodu ay ku soo sumoowaan usbuuca ugu horeeya ee uurka jirka haweeneydu maalintii waa u adkeysan karaa sunta soo galootiga ah maadaama kaliya sanbabada iyo qanjirada dhidid ay si wanaagsan u shaqeynayaan hayeeshee kolka ama habeenkii la gaaro shaqada xubnahaasi ay yaraadaan suntii ayaa ku soo ururaysa dhiigga kolka ay haweeneydu subaxdii hurdada kasoo toostana waxay bilowdaa ama ay bilaabaysaa shuban iyo matag maadaama ay jirka bini'aadamka caado u tahay dibadda iskaga saaro wixii sun ah ee soo galay haddaba sidaasi ayuu ku imaanayaa matagga hooyada uurka bilowga leh ee matagto subaxdii calaamada saddexaad ee lagu garan karo hooyada uurka leh waxaa ka mid ah ilmo galeenka oo balaarta markasta oo uurku jiifku sii weynaanayaba ilmaha galeenkuna waa uu sii balaaranayaa dhakhtarkuna qalabkiisa gaarka ah ayuu kula socdaa arrintaasi hayeeshee haweeneydu ma dareento inuu ilmo galeenkeedu uu sii fidsamayo ama uu balaaranayo